مرة من إنا نقرأ لكن وحشوني لكن وأخيرا سيقول كعا أجليو حبا جراتي وحكستا اللي جليو دلول كحوين تسرنكا كوما دقيست هذا دقيست كوما سومالي ويكحشوتا فطادا كوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن daawadayaal soo dhawaada waa mar kale iyo walaalkiina aadan karaama halka aad naga daawanaysaanna waa bartaan youtube-ka ku leenahay aadan karaama. haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqatay channelkeena fadlan subscribe inoo saar isla markaana riix gambaleelka cas si aad u noqoto qofka ugu horreeya ay soo gaadhaan muuqaalada xiisaha leh aan kusoo gudbino halkan. qodobka maanta diiradda inoo saaran waa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Sacdiyo Yaasiin Xaaji oo fadeexad weyn ay soo wajahday kadib markii ay goob fagaara ah si cad uga gaftay diinta Islaamka isla markaana ay markaasi eedeyn u soo jeedisay culimada Soomaaliyeed iyo baarlamaanka sagaalaad ee dalka iyo kan haatan fadhiya ee tobnaad. Sacdiya ayaa waxay u dooday xeerka kufsiga oo ay hore u diideen baarlamaanka sagaalaad ee Soomaaliya isla markaana ay ku tilmaameen mid si weyn uga hor imaanaya diinta Islaamka isla markaana aan lagu dhiqi karin waddan Islaama. Sacdiyo Yaasiin Xaaji ayaa waxa ay markaasi ku taagsatay in ay ka maqan yihiin xuquuq dumarka balse waxa ay si cad u difaacday xeerkaasi oo si cad u banaynaya in ay isku tagaan ama isguursadaan dadka isku jinsiga ah iyo sidoo kale in ay sinadu bannaan tahay. walciyaadu billaah. bal waa kan hadalladeedii qaar ka mid ah dhagaysta. ayagoo dadka ugu horeeya ay ahaayeen wadaadadii aan ka hor dhaqaaqi weynay sharciyada aan leenahay waa haynaa mararka qaarkood waxay hor istaaga waa rag inaan baasmarayno iska daa waxa kale baawarka 30% waxaan geli weynay dastuurka. xeerkan muranka dhaliyey ayaa waxaa horey uga hadlay guddoomiyihii baarlamaanka sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan isagoo ka hadlayay waqtigaasi isla markaana faahfaahin ka bixinaya qodobada fadeexadda ah isla markaana si weyn uga hor imaanaya diinta Islaamka. waxaa ka mid ah hadalladiisii. waxaan rabaa horta waddankan Soomaaliya waa waddan Islaama sharciga la sameynayana waxaa loo sameeyaa shacabkan Islaamka in lagu dhaqo. waxaan rabaa qodob ka mid ah qodobada wasiiradda ay soo gudbisay siduu u hadlayo. qodobka afaraad xukuumaddii hadda dhacday soo ansixisay oo wasiiradda soo gudbisay siduu u qoran yahay bal aan fiirin oo aan dhegaysano. horta ummadda Soomaaliyeed akhlaaq ayay leeyihiin. hadallada qaar xitaa siiqada loo qoro in laga fiirsadaa fiican. qodobka afraad sidaana u qoran yahay bal ila dhegaysta. qof kasta wuxuu gelayaa fildambiyeed kufsi ah haddii uu horta sharcigan wuxuu dhahayaa qof kasta gabdhaha xitaa fildambiyeed kufsi ay geli karaan. يعني قف كستا وحو قليا في الدنبيات كفسي هديقو مر من إنا نقير لكن وحشوني لكن وأخيرا سيقول كعا أقليو حبا جراتي وحكستا اللي قليو دلول كحوين تسرنكا كوما دقيست هذا دقيست كوما سومالي ويكحشوتا فطادا كوما أما حبين تترنكا إقف كري حبين تترنكا إقف كري أما أديك سدو وحكستا أما حبين كمدا جدكا إيو فقرد باء دقيست مركا فقرد باء وحولي هاي قفكا كري وصن أوغلين وحقلينتا شروط كحرا معاوة إنه أقرأ
shuruudda keliya ku xidhan inuu oggolaado waayo hadduu oggolaado ayadoo halkaasi ay isku haystaan haddii uu oggolaado itmiinis ma aha dembi maaha sidoo kale xildhibaanadii sida weyn uga horyimi ee isla maalintii xeerkan laga doodayey ama uu guddoomiyuhu jeedinayay khudbaddani hadalka ka jeediyey golaha baarlamanka ee Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ahaa diin kale ma lihin annaga sababta loo daba taagan yahay sharcigaas wasakhda ah horta ma naloo sheegi karaa wasakh waaye quran waaye sharci ma aha haddaan idiin sheegayaa wuxuu sharciga islaamka ka qabin iyo dastuurkan uu qabin lama keeni karo meesha mana oggolaanayo haddaan idiin sheegaynaa sharcigaas lagu daba dhegan yahay waddan kastaba sharci iyo shuruuc leeyahay annaga ma sharci gaalan ku dhaqannaa gaalada sharcigeema inta keennaan shacabku dhaqaynaa ruuxaan bilaahi calaykum aad maalin kasta dabada nooga wadaan maxay tahay maxaa loo diidan yahay maxaa loo keeni laayahay maxay tahay waxaas wasakh waaye qurun waaye sharci ma aha shaydaan waaye mana la keenayo inta waa tahay daawadayaal haddii ay tahay markii ugu horreysay ee aadna soo booqatay fadlan inoo saar sabskreybta islamarkaana riix kambareelka cas si aad u hesho muuqaalo xiise leh oo ku saabsan guud ahaanba qaybaha kala duwan ee bulshada sidoo kale haddii aad hore noola joogtay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaadna noo saaran tahay madaxa waa walaalkiin aadan karaama halkaan idinkala hadlayeyna waa janaalka barta youtube-kan ku leenahay ee aadan karaama tan iyo is aragti maqal dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo